waxay noo joogtay baabul icraabi. waxaan kasoo hadalnay ficilka iyo xaraf ayaan kasoo hadalnay iyo waxyaabaha lagu garto ficilka oo calaamadaha u noqda iyo xarafka iyo calaamad la-aantu inay calaamo u tahay xarafka. halka waxaan ka gelaynaa marka baabul icraabi. waxyaabaha la icraabo waa ism daahira iyo ficil mudaaric haddii uu ka dharbeelo nuunu tawkiid iyo nuunu niswa. ficilka mudaaric marka saddex ayaa loo qeybiyaa oo mudaaric saxiixul aakhira iyo mudaaric muctalul aakhira iyo mudaaric afcaalul khamsa ah ama amhilatul khamsa ayaa loo qeybiyaa. marka ficilkaas mudaaric oo weliba marka uu ka dharbeelo nuunu tawkiid alkhafiifati wathaqiila iyo nuunu niswa oo ka dharbeelo ayaa la icraabaa. asigaana saddex u qeybsama saxiixul aakhirka iyo muctalul aakhir iyo amhilatul khamsa ayuu mataqaana u qeybsamaa. saddexdaas oo ka imaanaysa mudaarica iyo sideed ka imaanaysa ism daahira kaliyaha la icraabaa. waxyaabaha kale waa mabniyaad. marka ismku saddex ayuu u qeybsamaa. ism daahir iyo ism mudmara iyo ism mubhama ayuu u qeybsamaa. ficiladuna mataqaanaa maadi iyo mudaaric iyo amaray u qeybsamaan. maadiga iyo amarka waa la bineeyaa. mudaaricana waa la icraabaa haddii uu nuunu tawkiid iyo nuunu niswa uu ka dharbeelo. haddaba waxaad ogaataa intii aan marayno baabul icraab waxa la icraabo inay yihiin sideedii isimka daahirka iyo saddexdii ficilka mudaaric ka imaada. qaala wuxuu yihi mualifkii baabul icraabi hada kan baabul icraabi icraabka ayuu baab yahay. isimka in la icraabo ayaa asal u ah. in la bineeyana faracay ku tahay. ficilka sidoo kale in la bineeyaa asal u ah, in la icraabana faracay ku tahay. sidaas darteed ficilka mudaaric farac ayuu ku yahay in la icraabo sababtoo ah ficil afcaash ayuu kamid ahaa inuu mucrabaadkii soo galo faracnimay ku tahay. alicraabu icraabku huwa icraabku tagyiiru awaakhir lkelim tagyiiru axwaali awaakhir lkelim kelimadaha aakhiradooda xaaladaha ay ku sugan yihiin isbedelkooda waa yiri sheekhu. liikhtilaafi alcawaamili liajli ikhtilaafi alcawaamili shaqeeyayaasha iskhilaafkooda darteedna ay isu bedelaan. cawaamishii addaakhilati gelaysay calayha cala alkalimi kalimta dusheeda gelaysay. kalimtana waa tii aan kasoo hadalnay waa kalimaadkii mucrabaadka la icraabayay sida isimka daahirka iyo ficilka mudaaric. calayha cala alkalimi kalimta dusheeda gelaysay. lafdan xagga lafdigana ka bedelaysay oo taqdiiran min jihati taqdiirna ka bedelaysay xagga kuniyeysiga ama ku qadirnaan. ama inay lafdan xagga lafdiga ku dhawaqa inay ka bedesho yani kelimadii ay iska bedesho ama xagga taqdiirka iyo ku qadirnaan gudaha aan loo jeedin laakiin muxuuha aan lafdi ahayn oo taqdiira ile meesha lafdi wax lagu dhawaaqo iyo wax kayru lafdi ayaa jira. kayru lafdigu waa ku qadiran yahay isku sharci ayuu qaadanaya maraya laakiin maadaama aadan u jeedin waa ku qadiranta waa isaga niyeysanaysaa. baabul icraabi hada kan baabul icraab icraabka ayuu baab yahay. alicraabu icraabku huwa icraabku tagyiiru awaakhir alkelim tagyiiru axwaali awaakhir alkelimi kelimadaha aakhiradooda axwaalasha ay ku sugan yihiin isbedelkooda waaye. ikhtilaafi alcawaamili liajli ikhtilaafi alcawaamili cawaamisha ama shaqeeyayaasha ile caamilku waa kan sidii ficilka oo kale iyo wixii saas ayaa loola jeedaa sidii jaa caliyun ra'aytu caliyan marartu bicaliyin aa tiri. marka caamil isweydaarsi cawaamil ayaa arrinta sababaysa sababtoo ah marna caamil rafca raba ayaa imaanaya o doonaya marna caamil raba nasbo marna caamil doonaya khafda. ikhtilaafkaas ayaa keenaya inay axwaashi isbedesho. axwaashan aniga meesha aan kusoo qadirayo hadda waa iska qaab culamada madaahibta nuxaada qeyb kamida ayaa mabda'aas ka aaminsan. sheekhu asigu arrintaas axwaashu inay isbedeleyso ma aaminsanayn
sababtoo ah sheekhu waa sheekh min almaghaariba ah sida aan kasoo hadlay laakiin kuufiyiinta ayuu ku mabda ahaa marka sheekhu wuxuu aaminsanaa jaa caliyun marka aad tiraahdo yaa ugu dambaysa yaadaasuna waa laba gudan tahay oo jaa caliyun ayaa dhahday asigu ulama jeedo marka shaqalkaas yaada dul saaran ulama jeedo laakin wuxuu ula jeedaa yani tagayurka ku yimid oo min xaalati rafci ilaa xaalati nasbi ilaa xaalati ljarri taas ayuu ula jeedaa asiga oo markaas axwaasha ayuu meesha ka saaraya culamadan kalena waxay leeyihiin waxa isbedelaya waa shaqalade awaakhir kalimkuna waa caliyun yaada u dambaysa yaadi waxba iskama bedelin mar walba caliyun jaa caliyun ra-aytu caliyan marartu bicaliyin ayaa leedahay yaadi mar walba meesha waa taale waxba iskama bedelin maxaa dhacay ayay leeyihin sheekha maxay tahay arrinta uu sheegayo haddaba marka iyagu waxay aaminsan yihiin culamadan axwaasha soo qadiraya waxa isbedelaya waa xarakaadka marka xarakaadkaas xarful icraabka ugu dambeeya kelimada uu ku sugan yahay ayaa isbedelaya sheekhanuna wuxuu aaminsan yahay waxa isbedelaya waa shay macnawiyaho adigoo aadan arki karin xarakaadkan meesha koraya axwaasha adiga aad ka hadlaysana waxay u yihiin mataqaanaa calaamo lagu aqoonsado marka mar walba waxa meesha ku jiro awaakhir kalimka iska bedelaya waa shay qarsoon waana xaalad waa yani isbedelkaas rafcaha min arafci ilaa xaalatu nasbi wa ilaa xaalatu ljarri isu bedelaya sidaasay u aaminsan yahay marka sidaas ula soco insha allah tagyiiru awaakhir alkalimi kelimadaha aakhiradooda ama dabayaaqadooda axwaasha ay ku sugan yihiin ay isbedesho liikhtilaafi alcawaamili laajli ikhtilaafi alcawaamili caamilyaal ama shaqeeyayaal ikhtilaafkoodana ay isu bedelaan cawaamishii adaakhilati gelaysay caleyha cala alkalimi kalimta dusheeda gelaysay lafdan xagga lafdiga ka bedelaysay oo ama taqdiiran xagga qadiritaanka ama kuniyeysiga ka bedelaysay haddaba sheekh wuxuu ka hadlay waxna waa lafdi oo waa wax lagu dhawaaqo markaas aad arki karto oo sidii jaa caliyun ra-aytu caliyan ah oo aad ku dhawaaqayso oo muuqda dareemina karto haddii la qoro waxna waa mataqaanaa taqdiir oo waa isaga niyeysanaysaa oo gadaalow noogu imaan doonaa insha allah mithaalada noogu imaan doonaan muuse oo kalaa kamid a iyo ciisa iyo wixii lamid a waxaad leedahay jaa muusa ra-aytu muusa marartu bimuusa mar walba muusaadi halkiisa ayuu taagan yahay marka jaa muusa markaan adha inuu gudan yahay oo maxay ogeysiinaya wax kalood ku fahmi karta ma jirto ilaa aad faacilnimadaas inaad ka fahamto maadaama uu faacil yahay faacilna waa marfuuc sidaas waa inaad u fahamtid haddii aad fahamto marka jaa ciisa ama jaa muusa inay muusahaas ama ciise uu gudan yahay aada ogaatid waxay ku sahlaysaa markaad muuse wax ku cadfayto sida jaa muusa wa cumar markaad leedahay wa cumarun miyaad leedahay wa cumaran miyaa andhehe mathalan wa cumaru miyaad leedahay oo yani cumar ama iska day cumar waa cumar waa iska ismaalaynsarif ma rabna baxarkiisa inaan galno waxaad insha allahu ku mitaalinaynaa muxamed muxamedin markii lagu xijinayo jaa muusa markaad tiraahdo muusa yimid wa cumaru miya wa muxamedun miyaad leedahay mase wa muxamedan ayaad leedahay meesha dhibku ka imaanaya waa meeshaas marka haddii aad ogaato muusa inuu faacil ahaa isla markaasna uu godnaa muxamedunna waa godaysaa haddii ra-aytu muusa aad joogtayna muusaas waa inaad fahamtid inuu mafcuul bihi yahay ile waa qofka aad aragtay wixii lagu cadfana waa kordhigmayaan wa muxamedan ayaad leedahay haddaba taqdiirka kaas ayaa la yidhaha mithaaladiisa waa noo imaan doonaa insha allah sheekhu marka shalay wax yar waxaan rabaa inaan baraarujiyo insha allah shalay markii aan kasoo hadlayo afcaasha iyo mithaaladoodii iyo waxyaabaha lagu aqoonsada afcaasha waxaan soo mithaalinay ama aan kasoo hadalnay kitaabka sheekh ajrumi isaga uu ku qoray oo ka hadlay laba shay kaliya yani laba ficil maadi iyo ficil mudaaric ayuu ka hadlay waa tiiqadaa lagu aqoonsadaa udhahay siin iyo sawfa iyo ta'taanida saakin ayaa lagu aqoonsadaa ficilka amarka waa ka tegay marka sheekhu ficilka amarka kama tegine
marka anaga madhabka aan haysano la fiiriyo ayuu ka tegay laakiin asiga markii loo fiiriyo asigu waxba kama tegin sababtoo ah sheekha iyo culimada madhabkiisa aaminsan waxay aaminsan yihiin ficilku inuu laba yahay inuu maadi iyo mudaaric kaliya yahay aaminsan yihiin amarkuna uu farac ka yahay ficilka mudaarica marka haddii aad aragtid sheekhu inuu ka tegay ha u malaynin in sheekha wax ka qaldameen sheekhu sidaas ayuu fahamsanaa ficilka amarku inuu farac ka yahay ficilka mudaarica isla markaasna ficiladu laba ficil ay yihiin ayuu aaminsanaa inkastoo gadaal haddana uu ku khilaafi doono oo sheekhu madhab mucayana uuna ku adkaysan doonin aakhirka aad arki doonto ficil amar inuu mataqaanaa misaali doonya aakhirka waa noo imaan doontaa insha allah waxaan gelaynaa sharaxa dhexe ayaa wax walba naga kaafi doona insha allah marka inaan kusii dheeraado ma rabo ka sheekaynta waxyaaba fara badan waxaa kuu fududaad doonta insha allahu markii aad sharaxa aada akrisatid wax walba ayaad ka fahmi doontaa waaqulu waxaan leeyahay uri sheekhu alixraabu ixraabku macnayaani laba macno ayaa lahu asiga u sugnaaday ama uu leeyahay axaduhumaa labada macnood midkood luqawiyun waa mid luqada loo nisbeeyey oo xagga luqawiga ah luqaduna waxa waaye mataqaanaa shayga markii waxa lagu sheego yani magaca guud uu ku dhacay ayaa luqada la yidhaahdaa wal aakharu kan kalina istilaaxiyun istilaaxi mid loo nisbeeyey waa kii naxwiga ahaa oo culamada nuxaatu ay isku waafaqeen in lagu magacaabo wamaa macnaahu macnihiisu icraabka macnihiisa ayaa loola jeedaa amaa macnaahu macnihiisu fi luqati luqada dhexdeeda fahuwa asigu alidhaaru waa muujin walibaanatu waa caddayn taqulu waxaad leedahay acrabtu waxaan caddeeyey camaa fii nafsii wax nafteyda ku dhex jiray wix nafteyda ku jiray ayaan caddeeyey idaa abantahu marka aada caddayso wa adhartahu aada muujiso waama macnaahu macnihiisu fi listilaaxi istilaaxa dhexdiisa yani istilaaxi nuxaati aa loola jeedaa fahuwa asigu maa shay waaye dakarahu lmualifu sheekha kitaabka alifa uu sheegay biqowlihi qowlkiisa uu ku sheegay tagyiiru awaakhiri lkalimi kelimadaha aakhiradooda oo la bedelo yani isbedelka ku yimaada marka tagyiiru awaakhiri lkalim qowlkiisa uu ku yiri way ayuu leeyahay kaas ayaaba istilaaxi ahaa isagu sheekhu markuu cabirayay istilaaxi u ka cabiray walmaqsuudu danta min tagyiiri awaakhiri kalimi laga leeyahay yani kelimadaha aakhiradooda isbedela danta laga leeyahay waa tagyiiru axwaali awaakhiri lkalimi kelimadaha awaakhirtooda ama dabayaaqadooda xaaladaha ay ku sugan yihiin isbedelkeeda way yani isbedelka ku yimaada walaa yucqalu ma dhici karta u leeyahay an yuraada in loola jeedo tagyiiru nafsi alawaakhiri awaakhirta nafteeda isbedelkeed loolama jeedo u leeyahay oo arrintaasu macquul ma ahan caqli ma gelayso walaa yucqalu caqli ma gelayso waay ama ma dhici karto an yuraada in loola jeedo tagyiiru nafsi awaakhir awaakhirta nafteeda loolama jeedo u leeyahay sababtoo ah kelimada aakhirkeeda waxba iskama bedelayaan sheekha sharxa ayaa hadalkan leh fa ina aakhira alkalimati kelimada aakhirkeeda nafsahu aakhirka naftiisu laa yatagayaru isma bedelo wa tagyiiru axwaali awaakhiri lkalimi kalimati kelimada aakhiradeeda xaaladaha ay ku sugantahay isbedelkeeduna waa cibaaratun ka cabirid ama ka turjumid can taxawulihaa muxuu ahaa leexashadeeda ama wareegashadeeda min arafci rafca xaggeeda ay ka wareegato ila nasbi nasbe ay u leexato aw iljari ayaa laga cabiraya xaqiiqatan xaqiiq ahaan wuxuu leeyahay ha u bedesho oo ama xukman xukum ahaan ha u bedesho xaqiiqatan waa meeshi laftan uu kasoo cabirayo hadda sheekhaanu xaqiiqatan ka cabiraya ow xukmanna meeshi taqdiiran oo sheekh kasoo cabiray wayakunu marka xukum xaqiiqatan waa xaqiiq ahaan xukumna waa la iska yaqaana wayakunu hada taxawulu isbedelka kan yani ama kasoo leexashada xaalatu rafca laga soo leexdee nasba loo leexdo ama jar loo leexdo hada taxawulu taxawulkan ama isbedelkan ka leexashada ah bisababi tagyiiri cawaamili cawaamisha isbedelkeeda sababteeda ayuu ka ahaaday
oo min caamilin caamil ay iska soo bedelaan caamilkoo yaqtadii keenaya alrafca god cala alfaaciliyati faacilnimo lagu gudo ow naxwihaa wax iyada lamida faaciliyada oo maxaa lamida faaciliyada khabaraa lamida ilaa aakhara ilaa caamilin aakhara caamil kalena loo bedelo ama loo leexiyo caamilkoo yaqtadii keenaya annasba nasba keenaya amba doonaya inuu nasbo oo rabo mataqaanaa nasbo matalan haddii aad ficil iyo faacil sheegto mafcuul bihi aad u baahanta marka caamilka ficil iyo faacilka aad la timid nasba ayuu doonaya cala almafcuuliyati mafcuulnimo lagu nasbiyo ow naxwihaa mafcuuliyada wixii lamid a wahaluma la kaalay ou leeyahay sheekhu jaran hoos dhigna la kaalay asigana sidoo kale oo caamul hadalkay iska soo gaabsanaya masalan tusaale ahaan idaa qulta haddii aad tiraahdeed xadara muxamedun maxamedaa soo xaadiray fa muxamedun maxamed ninka la yidhaahdo marfuucun waa mid la goday oo muxamedun daalku waa godan yahay liannahu asigu macmuulun waa mid lagu camal falo licaamilin caamil ayaana ku camal falay caamilkoo yaqtadii keenaya alrafca rafca keenaya cala alfaaciliyati faacilnimo lagu rafciyo wahada alcaamilu caamilkan huwa asigu xadara waayo yiri sheekhu xadara fain qulta haddii aad dhahdo ra-aytu waxaan arkay muxamedan maxamedaan arkay tagayara xaalu aakhiri muxamedin maxamed aakhirkiisa xaalka ugu sugan yahay ayaa isbedela ila nasbi nasba ayuuna isu bedel ila nasba ayuuna isu bedelaa ile marka hore muxamedun waa godnaa oo rafcu ku sugnaa laakiin marka ra-aytu muxamedan aa tiri aakhirkii maxamed daalkii mataqaanaa shaqalkii saarnaa godka ayaa wuxuu iska bedelay rafco ilaa nasbi una isu bedelay litagayur alcaamili caamilka isbedelkiisa bicaamilin bedelitaankiisa bicaamilin caamil kale lagu bedelo caamilkoo aakhara kale caamilkoo yaqtadii keenaya annasba kordhig arrintaas ayaana sababtay wahuwa asiguna ra-aytu waayuu yiri sheekhu waa arkay fa idaa qulta haddii aad dhahdo xadaytu bimuxamedin maxamedaan ku nasiibsaday yacni maxamedaan nasiib u helay xadaytu bimuxamedin ama xadaytu bicaliyin waxaa la yihahdaa marka aad mathalan qof aad rabteen inaad wax isla qabataan qofkiina laba qof ama saddex qof aad wax u qaybsanaysa marka waxaad leedahay qof adiga aad ku ogeeda nin xoog le inuu yahay ama arrintaas ku fiican qofkii nasiib ahaan adiga kugu soo aaday marka waxaad leedahay xadaytu bimuxamedin maxamedaa nasiib u helay yani arrintan asigaa ila sameynayo asigaa igu soo aaday waa camal tagayara xaalu aakhirkiisa xaalkiisa waa isbedela ila aljari jaruna isu bedelaa sababtoo bacdaasaa gashay bimuxamedinta litagayur alcaamil caamilka isbedelkiisa ayna arrintaas u timid arrintaas u dhacday bicaamili caamilka lagu bedelo caamilkoo aakhara kale caamilkoo yaqtadii keenaya ama raba aljara hoos dhig wahuwa isaguna alba waa ba oo bacdaas bimuxamedin ku jirta ayaa dhibkan keentay in wixii isbedelaan oo markaas kordhig ra-aytu muxamedana ila joognay laga qaado kordhigii markaasna isla markaasna hoos dhig ama tanwiin la geliyaa bacdaas bimuxamedin ku jirta ayaa sababtay waidaa ta'amalta haddii aad fiirisid fi hadihi alamhilati mithaalada dhahara laka waxaa kuu muuqanaya ana aakhira alkalimati kelimada aakhirkeeda wahuwa aakhirku waa addaalu daalkii oo min muxamedin maxamed xaggiisa ka ahaaday daalka muxamed ugu dambeeya lam yatagayar isma bedelin haddii aad mithaalada fiiriso waxaa kuu muuqanaysa uri daalka muxamed ugu dambeeya inuuna isbedelin wa ana aladii tagayara isbedelay huwa asigu axwaala awaakhirihaa aakhirkeeda xaalada ay ku sugnanta inay tahay waa yursheego oo waxaa isbedelay waa axwaalu aakhirihaa ma ahane nafsaha ma ahan fa inaka adiga taraahu waa arkaysaa marfuucan asigoo mid la goday fi lmithaali alawal mithaalka hore dhexdiisa lagu goday oo jaa muxamedun uu ileeyahay wamansuuban mid la kordhigo fi lmithaali thani mithaalki labaad lagu kordhigay ra-aytu muxamedan ayuu ahaa
ومجهولا من الله هستغا يا أركيسا ويرين يهي في المثال الثالث في المثال الثالث مثال كسدح دحيس الغو هستغا ومر حظيت بمحمد وهذا التغيير اسبدل كان من حالة الرفع اللي بدله إلى حالة النصب اللي بدله وإلى حالة الجر حالة الجر لو بدله أما حلقه وخاص بغنيا هو أسقه والإعراب وإعراب عند المؤلف شيخ كتاب القرآن زي إعراب كيهي وحول الجداء يعني من حالة الرفع إلى حالة النصب وإلى حالة الجر تاسع وإعراب يقانا شيخ waxay bedelayo la sheegayna waa kaasa عند الشيخ ومن qofkii wuxuu dhahaba mara madhabahu asiga madhabkiisa mara oo qofkii raaca asigoo madhabkiisa aaminsan sidaas waa leeyahay sheekh وهذه الحركات ثلاثه حركooyin kan oo saddexda allati harakadaasoo tii iyadoo arrafcu godka ah iyo wanasb qoriga iyo waljar hoos dhiga iyadoo calaamatun waa calaamo iyo amaaratun calaamo amaaratun iyo calaamatun waa isku mid markii hamzada amaara la kordhigo waa calaamad markii la hoos dhigana waa madaxtinimo ama mataqaanaa maamul aad oo qofku imaara oo sidaas xadiiskii waxay kamid ahayd rasuulka jibriil uu weydiinayay arkaanta islaamka iyo yani umuur islaamka oo arkaan islaamka iyo arkaan iimaanka iyo ihsaankii uu weydiinay ومن أماراتها إيو واتيو كشكينا رسولك مركي ويدي شجري حديث كسياك ليس مركي هديها همزة الله كردقو وعلامه على الإحراب إحراب تاي علامه تايده ومثل الاسم اسم كو كلنا في ذلك أرنتاس بدل كا الفعل فعل كا المضارع اسم كو كا فلو قلت هذا يسافر إبراهيم سفرايا فيسافر فعل يسافر فعل مضارع وفعل مضارع واسم كو كاله فعل مضارع مرفوع لا لغدي للتجرده لاجل تجرده هنا لو غدي كدربيلدا او كدربيلي محوها من عامل كو يقتضي كينا النسب وكردكيس oo ama caamilka darbeelay caamilkoo yaqtadii keenaya jazmahu reebkiisa فإذا قلت هدي هذا لن يسافر إبراهيم ما سفرايو تغير وحايس بدل حاله يسافر تغير حاله يسافر حال كيس ياس بدل من الرفع قدو اسك بدلا إلى النصب نصبون اسك بدلا وكان هذا يسافر كردقا لم تسان كردقتي sababtoo caamil kordhig doonaya ayaa meeshii imaaday للتغير عاملك isbedelkiisa بعامل kale oo isku bedelay aakhara kale oo yaqtadii doonaya nasba kordhigiisa oo asiguna lan way xarafka la yiraahdo feendaa qolta hadii aad dhahdid lam yusafir ibrahim ma safrin تغير حاله يسافر واسبدلaya من الرفع واسكبدلايا قد او النصب كردق من النصب واسكبدلايا الى الجزم الراب ونسبدلايا لتغير العامل عامل اسبدل كيس بعامل اخر عامل كلي اسبدل اما عامل كبدل كيس وعامل كلي لو بدل يقتضي كينايا اما يقتضي كينايا جزم الراب كيس وهو سيغنا لم حرف كليرا وعلم اوغو أن هذا التغير يسبدل كان ينقسم وقيب سمايو إلى قسمين لبا قيبات هل كي شيخ يقول لفظا أو تقديرا وهذا شيء قد أقول لفظي شرحين لفظي ويوري لفظي من لغو دواق وموقض أركي كرت كنا دواق كرت وتقديري من لغو نيستو يعني وقدر إيسان ماشا وكجرا لكن هو مجيد هذا وكن إيسان إيسان وماشا سكجرا وإسكو الشرعي كي كلي وحي وقادرها يردن وقادرها وأما اللفتي كان لفظي فهو أسيق ما شيء ويقول الله يمنع مانع مد وحريبا من النطق كل دواقيت بي أسيق الغد دواقونا كريبين كما سيدي رأيت أتصاع عرقتي
أما تكسو قاتي في حركات الدال دالك حركوين كيسا من محمد حد كيسا كهذا ودالك محمد سيدا تكسو أركتي هدي هذا بصرية كدكتو أمام محاوى سيدا كسو قاتي هدي كدكتو علمية وحركات الرأي هذا حركة هذا من يسافر كهذا يسافر إبراهيم مركا أديس يلا يسافر مركا أديس يلا يسافر أديس يبدل حركات يبدل هاي هيوك الله يا شيخ marka lafdiga kaasa la yiraahdaa hadii marka ismka inna maxamedin uu ka soo qaatay saddexdii dhinacba oo jaa maxamedun raytu maxamedan marartu bi maxamedin hadii ficil mudaaric uu yahay lafdiguna wuxuu ka soo qaatay yusafiru oo yusafiru ibraahimu lan yusafira ibraahimu lam yusafir ibraahimu waa ma taqdiiriyo kan qadiritanka taqdiiriyo kan la qadiro ama lagu niyeysto in harakaadkaas ku dhex jiraan فهو أسوق ما شيء ولا يمنع مانع مد وحرب أو ربا من التلفظ كل واقد بيها سير الغد واقع من تعذر عذر تومده يعني صورة الجل صورة الجل أنا يا بعد هذا تعذر ما بس صورة الجل إنه الغد واقع سيغد واقع سبب وألف ألف متقنا وحي يوضم بيس ألف تاسو حركة قادم ميس هدي يوضم بيس ألف ملسايا متقنا من عربها وحور طلا يا متقنا ربا إنه يقول مركز طلا وحن كهور ألف ملساء كهور ألف ملساء حركة ما بقى بشوا أنا وحور أرنتان يدا مودا وانا يور بنانك هين كاه مركز من تعذر عذر تومد أما الصورة قلعنا أو أما استثقال عسليسي oo waa lagu dhawaaqi karaa laakiin culays ayay keenaysaa inaad afka isu soo guddo faruya ama bishimanka isu soo jiido ayay mataqaanaa keenaysaa dhibaato aad kala kulmaysaa oo jacal qaadiyo marka aad dhahdid waa adayga ku jira jacal qaadiya ayaad iska dhigi kartaa waa banaanta luqad ahaan laakiin waa laga fiican yahay oo culaysa ku jira sidaas darteed waxa waaye mataqaanaa istifqaal wax loo leeyahay sidaas ma banaano laguma dhihin متعذر ولا ما دهن استثقال الود استثقالك والله عسلستي واي وارنجري كرتا لكن والله عسلستي لو ما بهنا او ما مناسبه كهبوناش حرف او دنبي ماشي جاء غلام اي حاله اما هذا كتاب اي حاله او حال هذا كتابي الى هذا انا اسو اضافه سروا hadii aad is wax isu idaafaynaysid yaada aad wax isugu idaafaynayso waxay u baahan tahay kasra inay ka horeyso hadii kale ma bashaqeynayso هذا كتاب اللي كتاب خبر وهاي خبر كنا جد وباهنا أصلا ما دام جد وباهنا خبر كجد وباهنا يجي هذا سوء فين يساعدك إضافة هذه أو كسر وباهنا إسكود داعي مركي إسكود داعين كسر يعني ياداس ما دام مناسبة كسر يوتاي أو واحد كلين كل شغلين بل يدسي حركة المناسبة لكن مر والبا جد كي خبرني ماذا كتابك وجدنا وآخر كحرف وقدم بيه محوها كتاب محو قدم بيه باء وقدم بيه باء ده سيكون قديها يعني مركا على ما قبل يا المتكلم يلا ده اللي مسكو شقي ما يعني قد يهوس ديك الله مرين هالمرة اسكولا دعان لا شيء معقول ما أن مركا تن مناسبة على سينا مناسبة ده سيدا سر كده واكو هبونا شو أما يدا يادو كسر يوبان تايكوريس تقول هذا يدعو الفتى فتي ويلك دليرة وأويرها والقاضي قاضي كنا وأويرها وغلامي غلام كي وغلامي يعني غلام كي كنا وأويرها أو قاضي يغلامي فتى يكون عطفين فتى نوا فاعل يدعو إن كستو مفعول أنا نوجد المشى فعل كانوا إنهم متعدي هذا أي اللي يويرها فتى فيدعو وعور فيدعو فعل كله يدعو مرفوع ولا قدي لتجرده كدر بيلتان كيسا لو قدو من الناصب wax kor dhiga iyo wal jaazima wax reeba oo ka darbeelay yani ma gelin way wax kor dhiga ama wax reeba maba soo gelin mar hadii sabab keento wax yani
مر والبوا مرفوع أنت زيادة خلاف وين يا كتا علوم فربنا يا سكويس لكن هذا هو الراجح إن مرفوع تجرد كاسين لو جدي أيها متقان علماء وبدين وحياة بدنا وكلا جده قد كنا دا يوم يلا حسين كقاردون إن شاء الله يكتبها كلا كوا مرفوع لتجرده دربل كيس يعني مرفوع حلو جدي لتجرده كدربل كيس من الناس وحكر دقو كدربل والجازم وحرم والفتاة فتاة قويل كنا الفتاة مرفوع وجدي لكونه أنشي فاعلا وهذا وجدني والقاضي قاضينا وغلامين مرفوعان والله بلغ لأنهما يجو معطوف فاني والله عطفي على الفاعل فاعل لو عطفي أو لو حريري يعني فاعل كاس لو سو حري عطفي وحاله markii hadal aad hore u soo tiri wax kale ina ka dabageysan لأنهما يجو معطوفان والله بلغ عطفي أو لو حريري على الفاعل فاعل كان لو حريري المرفوع لقدي ولكن الضمة ضمض لا تظهر كموقميس في أواخر هذه الكلمات كلمات كان أما كلموين كان آخر هذا كموقميس ضمض لتعذرها لتعذرها إن هو موقنين يعني عذر تومد أما صورة القلان في فتى دحديث iyo wasiqalaha culeyskeeda fi yad'u ay ku culus tahay kelimada yad'u in yad'u la yiraahdo waa macquul laakiin waa adag tahay waa culus tahay maadaama carabtu ay fudayd ay raadi jireen sidaas damayrta iyo waxyaabaha kale loo sameeyay in la fudeeyo si aan ism dheer iyo sheeko dheer loo gelin ayaa damayrta saas soo qoonaysa huwa iska leedahay inta aan magaciisa sheegay ama damiir yaraad u celinaysa hada saad u celinaysa وجدته هناك على توحيد أنا أركض عدينا وفي القاضي وعور وثقل علاز كذا في يد يكون علصتها إيه وفي القاضي قاضي الحديث قاضي وحدواتها قاضي يدعو يثقل أيام متغارين لكن مركي حالة النصب يجوكته أما يتهاجين حالة النصب ولا ظاهرنا يا للصعوتاس حالة النصب فتحه وخفيف ما دام خفيف يهدب ملها ورأيت القاضية أيها لنا لن ندعو من دونه إلها سأقران هو جرين سيدا سيادو كورد كيسا مركي حالة النصب لجوغ لكن مركي حالة الرفع لجوغ أما حالة الجر لجوغ حل قاس يتثقل تحي وانا لو قدرها ولأجل مناسبة يعني ولأجل مناسبة وقلمد أجل يا المتكلمي أما وهبونا شيء مناسبة يا المتكلم اسوقه ولأجل مناسبة يا المتكلم يا المتكلم مناسبة هذا أيانا متقانا لو قدرها في غلامي تحديث كلمات غلامية أو مي أديك اسو إضافي ويلك أديك اسو إضافي يا ده سيأبا عن كسر كوريس كسر دينا ميم كديو قلنا لها كسر ما يمالها مرك أرنتاس يا ده سالون مناسبة يدا كوهبون فتكون ضمة وحياها نيسا مقدرة مثل قدري أما لقون يستي على آخر كلمة آخر كذا لقون يستي أما هلك أقدم بيس كلمة منع واحد إذا من ظهورها ضمة صيني صاب النام بحضو التعذر عذر تومد أو الثقل العلاس أو اشتغال المحل بوسك وكون مشغولي بحركة المناسبات حركة مناسبة أو يأدي أي مناسب واحد وتقول واحد لن يرضى الفتى ويلكي مرها للنقرايو والقاضي ولن يرضى القاضي قاضينا مرها للنقرايو يو غلام كي marka wuxuu rabaa miisaalkan inuu kugu jamciyo bayna ta'adduri iyo thiqalka iyo munaasabadii sababtoo alfata waa ta'addurki alqaadina waa munaasab thiqalki غلامين ومناسبة فتا أو تعذرة قاضي أو ثقلة غلامي أو مناسبة وتقول وحلا إن الفتى ويلك هي وغلامي لفائزان وقولي سنة يعني إن الفتى
حالة النصب وجوب هذا فتاة وتعذر لكن إن تنصب الاسم وترفع الخبر سيدا درتها أي فتاة محلا يعني ونسب سنتها تقديرا ونسب سنتها وهو مبني ما هنا ومعربة مبني لو لما جيده يعني واكو قدرنتها وحي لكن ومعرب هوستي كو ونبنتها وغلامي لفائزاني لام تظلام المزحلقة اللي هذا باب كذا أيان وتقدرنا إن شاء الله لفائزاني وتقول وحلا مررت وحن صومر بالفتاة iyo waqulaami iyo walqaadiyaan soo maray wiilkii dhalinyarada ahaa iyo qulaamkii iyo qaadigayaan soo maray iyaguna xaalatu jaray joogaan bilfatada badaas lagu jira qulaamiina waa xaalatu jaray joogta iyadoo ku cadfay walqaadiyana sidoo kale marka waa tacadurkii iyo qulaamiyo oo munaasabadii ah iyo qaadiyo thiqalkii fama shaygi kaana aakhirkiisu alifan alif oo ahaado aliftu laazimatan laazim ah oo marnaba aan dhaqaaqayn tuqadar waa la qadiraa jamiicu lxarakaati xarakooyinka dhammaantooda la qadiraa caleyhi dushiisa lagu qadiraa litacaduri lain litacaduriyaana loo qadiraa cudurtooda mid darteed wayusamaa waxaa lagu magacaabaa alismu isimka almuntahaa ku dhamaanay بالالف الف كنا ما مقصورا يا اللغة مقعابا مقصور اسم مقصور يعني محبوس واي حور مقصورات في القيام يعني وحلقة حبسي حركاته مرنا ما الأمة دقائق وألف وما تقانا نقبلين شروط هذا وحكم إذا هرت ألف تو إني لازمها توا شرط إن فتح كوريسنا وا شرط مثل الفتى وكلي مثل الفتى ويلكي وكلي والعصا وشي وكلي والحجة عقلي وكلي والرحى شيد مرينكي وكلي والرضا وكلي رضا ولا ربح عادتكم مقعهان ولا بحان أما ورها لها شيء رضا سداس marka fata waa la iska yaqaana waa iska wiil casa fata wiilka dhalinyarada waa la dhahaa waxa kale la dhahaa ninka mataqaana aan loo geli karin oo nin qatar ah marka wiil nin dhameystiran fata waa loo isticmaalaa ninku markuu dhameystiran yahay fata ayaa la yiraahdaa waa kii darfa ibn abduhu macallaqadiisa ugu hadlay oo isku amaanay markii yaa wiil dhameystiran arka la yiraahdo aniga soo booda waati u dhahay walcasa waa la iska yaqaanaa waa ul xajana waxa waaye mataqaana waa caqli xaja marka alif caadi lagu taago hadda way ka duwan tahay marka alif caadi lagu taago malja iyo waxyaabo kale noqotaa asturaad noqotaa macaani fara badan ay ku imaadaan markii laakiin aliftan alif yaada u qoran ay ku dambayso waa iska caqli ashcaar fara badan ay carabtu ku soo aroorisay meelo fara badan ay uga hadlaan حديث حتى حديث المسألة جري ودا حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة قد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة مركا حجة كانوا عاقلي وما كان آخره وما شيء كان آخر في سو هذا يا عنده ما يشاء قلدين يا كتاب كسيدان أركايو كان تنصب الاسم والناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر مركا آخر كوا اسم كان ومرفوع ياء إن نصب سنات وقصب وإلي وخبر كان ويقول يعني وما شيء كان آخر في سوا هذا يا وهذا لا يدو لازمة تقدر الضمة عليه دوش سلو قدرها يا والكسرة كسرة الاستقال على سلو قدرها الجن بيودا ما دام ضمة يكسر يعلسين ويسمى وحلقوا مقعبا الاسم المنتهى اسم ككل ماذا بالياء كل هذا منقوصا اسم للنسقامي أما للنقسامية لو يقان حلقوا مقعبا منقوص محله بحيي بعض حركاتها للنسقامي sababtoo ma taqaanaa
xaalatu nasbo kaliya muuqanaya inta kale waa qadanaya marka nusqaamaa ku jirta watadharu calayhi alfatxatu fatxadaa ka daahiraysa likhifatihaa fudaydkeeda ayay uga daahiraysaa naxwu alqaadi oo kale wal daaci ninka u yeeraya daacigu waa ninka mataqaanaa diinta ilaah dadka ugu yeera sidoo kale ninka caadiga wax u yeeraya waa dhahaa ajiibu daaciy allahi daaciga iyo walqaazi ninka duulaya ninka saaxibulqazawaadka ninka duulaya wasaaci ninka soconaya ama shaqaynaya walaati ninka imaanaya waraami ninka gamaaye mithaaladaas oo dhan waa ism manquusa ama kii aan soo dhehaynay hiqalki markuu isimka yahay waay wamaa kaana hiqalka ficilkana waa galaa isimkana waa galaa wamaa shaygii kaana ahaada mudaafan mid la ilaafeeye ilaa yaa ilmutakalim iyo almutakalim loo idaafeeye tuqadaru waa la qadiraa caleyhi dushiisa alxarakaatu shaqalada dhan waa la qadiraa yani shaqalada waa lagu qadiraa kulluhaa dhammaantood lilmunaasabati liajli munaasabati yani loo qadiraa wadalika naxwu gulaami wiilkaygii oo kale wa kitaabii kitaabkaygii oo kale wa sadiiqii saaxibkaygi oo kale wa abi aabahay oo kale wa ustaadii macalinkaygi oo kale ويقابل وحا قابلة الإعراب إعراب البناء وبناء يا قابلة ويتضح كل واحد من كستوا عدالة منها ما كمدة تماما لتضاح عدين ضمستر كذا يعدالة بسبب بيان الآخر يعني عدين ضمستر بسبب بيان الآخر آخري كان كله عدين تيس سبب هذا يوم قادر مر هدي مثل وقوع عدايو كان كله عكس جي سواء فهميس هذا سوري وقد ترك المؤلف مؤلف وكتج بيان البناء بنينته cadaynteeda ayuu ka tegay wanaxnu annaga nubayinuhu cadaynayna laka adiga ku cadaynayna cala dariiqati qaabkii allatii dariiqadaasoo bayanaa aan cadaynay biha iyada alicraab icraabkaan kugu cadaynana fanaqulu waxaan leenaha lilbinaa'i binaha macnayaani laba macno ayuu leeyahay axaduhumaa midkood waa luqawiyun mid luqada loo nisbeeyey walaakharu kan kalena waa istilaaxiyun mid istilaaxi وأما معناه معنيه في اللغة دحدة فهو أسوق عبارة وكعبرت عن وضع شيء دجنتي سلقة عبره على شيء كاللي ودول دجيه على جهة قاب يراد بها الودون يا الثبوت السقناشر وأما معناه معنيه في الاصطلاح ده فهو أسوق لزوم آخر الكلمة كلمة آخر كذا حالة واحدة لازمتها لغير عامل الآن ولا اعتلال إلا الآن يعني علت كانت أنا مالي عامل كان أنا مالي ساسي أقول كذا مال كاسي لازم يسا عامل كاستقلي واحد كاستوشك وذلك كاللزوم كم وكله كم عرق اللي يرادو قابك أقول لازم السكون كاسو لازم مرول ومن وعلمت السكون كاللزوم كم يا ومن السكون أي لازما ولزوم هؤلاء يا وحدامي يا أمسي الكسر لازما هؤلاء waa la iska yaqaanaa xadaamina waa la yaqaanaa waa gabadhii caanka aheedoo shaaciradana aheyd oo dhihi jirta habeen inta aragtay qadaa iyo shimbir iska ordaysa tiri alaa yaa qowman artaxiluu fasiiruu falow turika alqadaa leylan lanaama markaas ninkeedi qabay zawjkeeda uu yiri idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqawla maa qaalat xadaami waa gabar caana ay aheyd وأمسنا ولا يقانا وشرد الله صدافي مر والبئس بدش أمس داسي عنيسا وكاللزوم منذ وحيث أضم أي لازما مرق أركض حيث أنا لهجدوا أيكو كلا دوناتها إذا قرد جوا أركيسا ما إذا هستجان لهجدا قبيلة إلين لكن لو قدر رسمي جوا إني جوانته قرآن كان سداسي أكو صارت هي حديث وكاللزوم أين لازمتان كذا وكيف الفتح أي لازمان ومن هذا الإيضاح عضينتان تعلم واحد وجانيس أنا القاب البناء بناها لقبضه لا أما وحياها محوها لقب كوالي سيقان وأنا نستا أما محوها قفك وحلو يقان نقنينك
أربعة وافر أن ألقاب الإعراب أربعة السكون والريب والكسر وعصدك والضم وقد والفتح وقرك. وبعد بيان كل هذه الأشياء شياشان ضمانتود عدينتود كدب لا تعصر كعس لا ميس عليك الدش على معرفة المعربي إن المعرب كقرته يول مبني فإن المعرب معرب ما شيء ويتغير حاله آخر حال كيس ويسبدله وكسويا لفظا حق اللفظ جنا ويسكبدله أو تقدير حق قدير تانك ويسكبدله بسبب العوامل عامليال سواء طبعا ويسكبدله يول والمبني ما شيء وايد لازم آخر كيس لازمه حالة واحدة هل حالة قليلة هل سكون أما هل فتحة أما هل كسرة لازمة لغير عامل الآن ولا اعتراض على الآن. أنواع الإعراب قارنا إن شاء الله. أنواع الإعراب هذا كان باب أنواع الإعراب إعراب كأنواع ليس باب. قال وحور الشيخ وأقسام غيبه 4 رفع وقد والنصب وكرد وخفض وهصدق والجزم والرب. فللأسماء من ذلك الرفع يا وسقناتي فالرفع يا للأسماء وسقناتي من ذلك أرنكاسي وسقناته والنصب وسقناته والخفض وسقناته ولا جزم الرب فيها في أسماء الإحدى ما أهان وللأفعالنا والرفع ده قد للأفعال فاشي وسقناته من ذلك أرنكاسي وسقناته والنصب وسقناته والجزم الرب وسقناته ولا خفض وسقنا فيها في الأفعال فاشي الإحدى ما أهان أفعاشا لما هصدقوا اسم كان لما جزمي صواب خفضوه هرت ما تقانا وحواي والجزم كوريس الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض والجزم. خفضه وعلوسيا فعل كنا وعلوسيا فعل يخفضها دي اللي سوق واللقاء كريم وعسلانا اسمكو وفدود يهي جزمه هنا وفدود يهي مركا أصلا وريره مركا سيدا سيا لوكال اللي يهي. وأقول وحن لا يرى أنواع الإعراب إعراب النوعية شهدوا التي أنواع صوت تقع دعيس في الاسم اسم كدهيس والفعل جميعا لما انتهت 4 وأفر. الأول كان وهر الرفع وقد والثاني كان لبعض النصب وقرر والثالث كان سد حدا الخفض وهصدق والرابع كان أفراد الجزم والرب. ولكل واحد متكستو من هذه الأنواع النوعية كمدة على 4 أفرتا معنى يلاها في اللغة دحدة كلها ومعنى والله في اصطلاح النحاة النحوية اصطلاح كلها. وأما الرفع قدك فهو أسيق في اللغة دحدة العلو وسرين يوال ارتفاع كرنقش وهو أسيقنا في اصطلاح النحاة دحديث تغير وإسبدل مخصوص خاصة أما الجونية علامته سنة ضمته قد إيتاي وما نابع عنها واحد ضمدا كان نائب نقد أما كوكيلنا وستعرف وقرد دونتا وفهم دونتا قريبا وقت دو ما شيء فهم دونتا ينوب كان نائب نقنا يعني ضمدا كان نائب نقنا في الفصل الآتي فصل كسوس علياتكو قرد دونتا إن شاء الله إلى ديو دون ويقع الرفع وضع يعني وقلا يولجي في كل من الاسم والفعل متكستو فعل اسم فعل كمل أيو دعاء أو قلا نحو يقوم علي استاغاي ويصدح البلبل شمبرك بلبلك أها أيا دواقايا أما جهر كان هذا شمبر كان بلبلك اللي يرادو جهر waxba kama oge waa qayla waa iska qaylinaya shimbirkan la yiraahdo bulbulkuna shimbir caan oo cod macaan ayuu ahaa carabtu miisaal ay mahmahay ka dhiga jireen xogo wuxuu shabahaa dugaha amba quraabka waxa kamid ahaa ma taqaana sawtu safir albulbuli ninkii asmaa'il dhigi jiro qatarta luqadda ku ahaa oo kan sawtu safir albulbuli gabagi ahaa خليفة أبو جعفر المنصور ويابي مرة حجي جري متقانا شعراء أو رب إنه بنانك كله شعراء العادي قاعدة جرين العقد هذا ورب إنه بنانك كله مركا نكان أسمعي أن قطرها يا بنانك كله خليفة وحوري مركا بلبل كاسة يعني شنبر كاسة قايلين أيوة. وأما نصبه فهو أزوه في اللغة دحدة الاستواء وكرنقش والاستقامة تصنان وأسونا في الاصطلاح الذي تغير وإسبدل مخصوص جونية علامته سنة الفتحة فتحة تهي وما نابع عنها وحي كان نائب نقطة فتحة
ويقع نصب ودعا في كل مد كستو من الاسم كمده والفعل أيو دعا أيضا سيدا كو رفعه أيو دعيسي نحو لن أحب مجعل لن أحب مجعلنا الكسلة وحسده. والخفض وما الخفض خفضه فهو سوق في اللغة دحدة التسفل وهوسين وهو سوقنا في الاصطلاح دحديس تغير ويتبدل ومخصوص جونية علامته علامتي سؤال كسرة هوس دكتاي يوما شيء نابع عنها كسرة كوكيل نقطة ولا يكون الخفض خفضه ما هذا إلا في الاسم اسم كدحديس معناه نحو حد لا تعلمت وحن كحنون صدي كسول وحسب بدنها يعني حنون وهنا قف وحسب بدنها وحبا قرسني مركا تحوغو ألم iyo waxba uu ku kicinayo dadka dareen kale ay ahay anaga hadda xilliga la joogo u malaynaayo qof naftiisa ma aha dad kale badanaynaayo badan yahay وأما الجزم رابك فهو سوق في اللغة دحدا القطع والجوين وفي الاصطلاح ده سنة تغير ويتبدل ومخصوص خاص أو جونية علامته سنة مخصوص لخاص هذا وعلامته هنا السكون أيضا وما شيء نابع عنه سكون كنا ابن سكون هو عدم الحركة وسع مرك حركة لا حد فيها سكون دقا بوسكر ولا يكون جزمه ما هذا إلا في الفعل المضارع في الفعل كمضارع ده يسمى نحو لم يفوز مقوليسا وتكاسل نوهسه فقد تبين لك وحكوا عدد أن أنواع الإعراب كالنوع يشيز على 3 أقسام 6 قيبات إنه قسم قيب مشترك وقيب لو ذاك سد بين الأسماء دحية والأفعال فعل دحية وهو سون والرفع قد والنصب كردك وقسم قيبنا مختص وحكوا جونتها بالأسماء أسماء ده وهو سون الخفض وخصدك وقسم قيبنا مختص وحكوا جونيها بالأفعال أفعاش وهو سون الجزم والرهب marka sheekhu waxa uu cabirayo falil asmaa oo leeyahay asmaada wuxuu la jeedaa asmaadii mu'rabada ee ismka mu'rabka sideed uu qaybsamay uu la jeedaa sidaas oo asmaa ugu jamciyay ismi ma una dhihin falil ismi ma una dhihin afcaashana sidoo kale ilaa afcaal saddex uu qaybsamaysa maadi iyo amar lama ixraabi jirin mudaaric kaliya la ixraabi jiray muxuu u jamciyay sheekh oo afcaal u yiri maadaama hal ficil uu yahay sheekada halkaas ku jirta waxay tahay ficilka mudaaric uu saddex sheekh u niyeysanayo inuu yahay وصحيح الآخر معتل الآخر يفعل 5 شيء وغيبنا كفهم سداس إن شاء الله.